waa goob saxra ah waxayna ka mid tahay goobaha ugu khatarta badan ee dalka Mareykanka waxayna ku magac dheertahay mandaqada 11aad horaantii bishan ayuu dayax gacmeedkuna inoo daaqaaday mandaqadan iyo xogteeda qarsoon sanado badan ka hor waxa la aaminsanaa in goobtani ay caan ku tahay suxunta duusha xilligaasna may jirin cid booqan karaysay mandaqadani aadna waxa loo adkeeyay amaankeeda iyada oo laga cabsi qabay in dadka ay waxyeello ka soo gaadho sanadkii 1947 ay ahayd waqtigii si cad ay wargeysada caalamku uga faalloodeen arrimaha mandaqadani si kasta oo ay noqoto dawladda Mareykanku marna umay bandhigin shacabkeeda xogta qarsoon ee mandaqada 11aad waa makhluuq la aaminsan yahay in uu la socdo suxunta duusha dhammaantiina waxaynu u naqaanaa magaca caanka ah ee UFO tuuladani oo qarnigii 20aad ka mid ahayd tuulooyinkii ugu camirnaa dalkaasi Mareykanka 3 jeer oo ka mid ah waxa yimiday suxunta duusha iyagoo gurtay dhammaan dadkii deganaa sidaasna waxa loo raaciyay mandaqada xogteedu qarsoon tahay ee 11aad waa dhul masaafo ahaan gaadhaya 800 kiiloomitir balse sanad kasta 2 jeer ay yimaadaan suxunta duusha sida idin muuqata goob kasta oo mandaqadani ka mid ah waxa ku xardhan sawirada iyo magacyada UFO-ga sida ay saynisyahano badani ay qabaan goobtani asal ahaan suxunta duusha waxay u tahay saldhig dabiici ah oo aan lagu xadgudbin waxaa beena hadallada iyo fikrada ah suxunta duusha Mareykanka ayaa gacantiisa ku sameeyay sanadkii 1977 magaalooyinka Texas iyo Atlanta waxa lagu arkay suxunta UFO-ga oo dul heehaabaya hawada sare